السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيبتاني وقيبتي تطبات كصابسا حكمتها noloshaada laga yaabo inay ku iftiimiyaan waa kelmado muhiim noo ah oo mutaystay in lagu qoro baaldahaba qof mutaystay iyo midaan mutaysanba kula dhaqan akhlaaqda tan ugu sarreysa qof yahaadu waxaad u soconaysaa guri ku dhex yaala jannada oo ma socotid guri ku dhex yaala qalbi walba ha karaahaysan oo ha nicin nacayb iyo faqooqna ha u tilmaamin qofka si kasta uu khaldamaba oo adiga wax xaqdarra ka galaba waxaad noqotaa sidii geed timireed oo kor u kacay ee macaan ee qof walba uu goranayo mirihiisa caraftiisuna ay fiican tahay markaad u murugoynaysid waxaan waxba ahayn ogow qalbigaada wuxuu u hiloobay qur-aanka kariimka inuu la saaxiibo inta badan niyadda wanaagsan la jirkaada ma soo jiidayso waxaan ka ahayn arrimo wanaagsan oo kadis kugu ah muhiimaddu ma ahan dhaqankaada inaad beddeshid laakiin niyadda wax walba ka go'aami niyaddaada beddel waayo niyadda ayaa laysku hirsaaqaa foorar walba iyo qofku inuu foorarsado dhabarkiisa ayay laabto oo jebisaa marka laga reebo markuu qofku u foorarsanayo salaada oo rukuucayo markaad salaada u rukuucaysid naftaada ayaa kor u kacaysa oo raaxaysanaysa deganaasiya farxadna helaysa kuwa ka sheeganaya inay xoolahooda yar yihiin ama irsaaqada ku yar tahay nasiibkoodu yar yahay noloshu tahay nolol dhibaataysan oo noloshu ay ku xun tahay ogaada kuwaas kaydadkoodu waa buuxaan oo qaninimo ayaa ku jirta laakiin waxay waayeen furihii ay ku furi lahaayeen qaninimadaas iyo hodatinimadaas furayaashaasna waa maxay waa khayr filashada sabirka iyo iimaanka walaalayaal noloshu waxa weeye sidii riwaayad oo kale bimacnaa warin oo kale joornaalka subax kasta soo baxa maalin walba wuxuu la soo baxaa beyj cusub sidoo kale noloshu waa sidaas maalinba waa beyj cusub waaye mar waa murugo marna waa farxad sidaa darteed ha murugoon dushaada ma ahaanin waxaan ka ahayn qalbi saafiya inaad la timaadid rabbina tala saaratid noloshaada waad ku raaxaysanaysaa mid ilaahay ka raalli yahaynay noqonaysaa dadka qaarkood waxaad qortid waa laga yaabaa inay ku jeesjeesaan qaarkood waa laga yaabaa inay si xun kuu fahmaan qaarkoodna waxba laga yaabaa inaysi ku fahminba si wanaagsan iyo si xunba laakiin waxaa jira dad markaad u sheegtid xanuunkaada kuu sheegaya mustaqbalkaada quruxsan niyaddana kuu dhisaya kuwaasi waa kuwaan u baahannahay ninbaa hadda kahor waxaa layidhi wuxuu soo galay meel dhakhtar ah yacni farmashiye waxaa la midka markaasu wuxuu yidhi agtiina ma ka helayaa daawo qalbiga ii jilcisa ninkii dhakhtarka ahaa ama uu daawada gadayay ayaa wuxuu yidhi haa haye isii buu yidhi daawadaas kitaab qur-aana meesha yaaluntu soo qabtay ayuu yidhi waa kana ilaayaa kuga caafimaadiyo kelmado quruxsan oo noloshaada deganaansha u soo jiidayaa ku qoran waa webi soconaya qur-aanku meesha loo marana waa 5 salaadood ha quusan dhibaatadu meeshay doontaba ha kula gaartee farajku waa imaanayaa farajku wuxuu la mid yahay sida ilmo yar oo jiifa uurka hooyadiis marka ilmaha waqtigiisii la gaaro soo ma dhalanayo caloosha kama soo baxayo sidaasoo kale ayaa farajku la mid yahay iyo makhrajku dhibaato kastoo ku haysata maalin baad ka baxaysaa insha allah waqtigeedu waa dhammaanaya haddii ilmaha waqtigii loogu talagalay yacni uu ku dhalan lahaa uu ka soo hormaro wuxuu noqonayaa ilmo aan dhammaystirnayn laakiin haddii waqtigii loogu talagalay ilmaha ku dhasho wuxuu noqonayaa ilmo isku dheelitiran sidoo kale noloshuna waa sidaas laga yaabo maanta dhibaato inay ku haysato oo aad leedahay awi farajkii dhibaatada maa ka baxo wax yar sabir ha quusan waqtigeedii baan weli la gaarin ma shin dhammaysan shinkiisii baan la gaarin farajka adigu waxaad noqotaa sidii roobkii oo meeshuu ku degaba dadka farxad iyo baraara u muujinaya roobku markuu da-ayo ma kala fiiriyo gurigaana qani iska leeyahay gurigaana faqiir iska leeyahay gurigaana dumar iska leeyihiin iyo gurigaana rag iska leeyihiin meesha ilaahay amar ku da-a ma kala saara dadka adiguna sidaasoo kale noqo markuu roobku soo do biyihii soo dhacay waa biyihii uun ama u hoorso weel dahaba ama u hoorso weel caaga biyuhun waa un biyihii waxba noloshaad ku jirta markaysa kula yaraan oo ha xaqirin qofka adiga kaa masayra ha canaanan ee ixtiraam waayo taa waxay tusaysaa inuu kuu tilmaamayo in adigu aad ka fadli badan tahay 3 arrimood nolol farxadeed oo aan sabab lahayn mashquul shay lagu mashquulo iyo shayga la jecel yahay oo la laasimo awoodna la saaro si loo helo ninbaa wuxuu imaaday nin wanaagsan oo saalix markaas wuxuu ku yidhi hebel oo aad taqaanid uu ku caayay meel dad joogeen buuna kugu dhex caayay ninkiiba wuxuu ku jawaabay hebel hadduu igu soo ganay leeb oo isay asiiban yacni igu dhicin adigu maxaad soo qaadi leebkaas oo qalbigayga ugu tallaalaysaa dadka adigu waas ku dirin sheekadana u kala qaad nin xakiima waxaa la weydiiyey maxaa dadka ku dhacay oo aysan u arkayn ceebta naftooda oo ay u arkayaan ceebaha dadka kale ninkii xakiimka wuxuu ku jawaabay sababtoo ah buu yidhi qofka bili-aadanka naftiisa waa jecel yahay qofka wax jecelna qofka uu jecel yahay ceebtiisa inta badan moo fiiriya mana arko dhammaantiin waxaa idiin filaynaa nolol farxad leh baaraka allahu fiikum